anigu waxaan qabaa nabadda ceerigaabo looma dhamma dadkii ku dagaalamay ma heshiinayaan waxay ogtahay nabad sawira oo la isku sawirayo waqti laakiin haddii la rabo in nabad la galo maalintii Hargeysa iyo Laascaanood heshiiso bay nabadda ceerigaabo xirmaysaa sidaas ahamba Soomaalidu waxay dhahaan hadal waxay dhaskor waayeen wada aqli bay dhahan hadduu saahayna wada indho dadka inta muuqatay awow jeednaa dagaalka meeshu ka dhacay ciidda dagaalantay oo dhibaatadu dhex madhay waa reer Laascaanood iyo wax weeye Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibadeena meel kasto aad dunida dacalada ka joogtaan soo dhawaada 22 Oktoobar sanadka 2025 barnaamijkana waxaan idin kula wadaagi doonaa Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaam Suldaanka guud ee beelaha Maxamuud Harti oo xilligan wajahaya imtixaankii ugu cuslaa iyadoo guud ahaan shacabweynaha Puntland iyo waqooyi bariba ay eegayaan waxa uu ka soo qaado magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag doorkii Puntland aaway haddii Puntland ay diidan tahay maamulka waqooyi bari ee xaruntiisu ay tahay Laascaanood xulafo siyaasadeedna ay la tahay Somaliland maxay Somaliland ugu wada hadli waayeen sidii laba maamul oo siman maxaa looga reebay wafuudii Puntland ka imaanaysay shirka madaxdii Puntland xataa wasiiro maxaa looga reebay oo looga talagelin waayay Puntland haddii ay diiday in maamulka waqooyi bari uu gobolka Sanaag ku fido maxay u ogolaanaysaa in Somaliland isballaarinteedu ay isku fidiso gobolka maxay u qaadanaysaa markaasi go'aamada noocaasa barnaamijkeena ayaan idin kula wadaagi doonaa maxay doonayaan beelaha Harti in Suldaan Siciid uu ka soo qaado magaalada Ceerigaabo beelaha Isaaqna maxay doonayaan sida la wada filayo haddii beesha Isaaq waxa ay doonayso ay soo baxaan maxaa dhici kara dad badan waxay ka rajo dhigeen Suldaan Siciid iyo awoodda uu u yeelan karo in uu markaasi hor fariisto beelaha Isaaq kana soo qaado wax dan u ah beelaha Harti way ka rajo dhigeen waxaana dad badan ay saadaalinayaan in waxa Somaliland ay rabto ay soo baxayaan maxaa markay dhici kara hadii waxa Somaliland ay rabto ay soo baxaan warbixinahaas oo dhan baan ku dul istaagi doonaa muuqaalkan iyo fariintan ba iga fogeeya shirgareeya oo la gareeya YouTube-kana ku soo biira aad baad mahadsantiin aan ku bilaabo Ceerigaabo iyo xaalkeeda ka sheekeynayno Ceerigaabo cid colaada ka riday cid dadka kala cayrisay iyadoo dadka si nabad u degan yihiin oo xataa lagu qanacsan yahay calanka Somaliland oo xataa iyadoo dagaal Laascaanood ka socdaan dadkaasi ay wada joogeen oo ay wada deganayeen oo canshuurtii Somaliland ay qaadaysay lagu qanacsanaa cid dadka laysay oo dadka joojar gareynaysay oo dadka laysay waa la garanayaa colaada Ceerigaabana cid bilowday waa la garanayaa maalintii Goojacda lagu kala baxay ciidankii lagu jibiyay waxay tageen Ceerigaabo markaas waxay miraysanayeen qof kasta oo ka soo dagaalamay Goojacad oo Harti ah waxa ku xigtay toojar garayn iyo dadkii injeel lagu guro shaamuug jeedal ay la dhacaan ummadii inay surweeladii ka siibaan inay suuqyadii bilaqaystaan marqaatibaad ka ahayd hada dadku bilaadan weeye faraha baruura kuma haystaan way isdifaaceen taas oo keentay in Somaliland ka soo saarta shacabkiina soo barakiciso waxa meesha la isku hayay ama lagu baalkeenin wax kala ma ahayn dadkaas oo isdifaacayay Somaliland oo ummadda ku tiri qasabku islaama ma taqaanay canshuur baada keena ma taqaanay caburin taas oo keentay in dadkiina yimaadaan haddaad maamul tihiin annaguna maamulaan leenahay Puntland baan leenahay waqooyi bari baan leenahay ama SSC haddaad idinku maamul tihiin oo Somaliland tihiin annagana Puntland ama waqooyi bari baan nahay haddaad idinka Isaaq tihiin annagana Harti baan nahay marka walaalayaal nuguma xad gudbi kartaan calankiina meeshin haydin hada annagana kayaga meeshin nooto qab halkaas xabadu ka dhacay Somaliland iyaga la rabaa sababtay dadka ehelka u laysay ilaa iyada Goojacda dadku joogaan oo ciidanka Somaliland iyo ciidamada Harti isku dilayaan ba ma taqaan Ceerigaabo la wada deganay maxaa dadka u layseen waxay u laayeen xanaaq iyo nacayb iyo forja ay ka soo qaadeen darbaaxadii weyneed ee kaga dhacday Goojacda taas oo keentay inay dhahaan faqashta halaayo wixii meesha jooga ma taqaan hal xasuuq anigu faqashay dadka Soomaalida oo dhan bay dhahan laakiin si gaar ah reerka daaroodka aniguna waxaan leeyahay dhaqash baan leeyahay aniguna faqash waa dhadig waa lab waa magac lab ah dhaqashna waa magac dhadig marka dhaqashtan anaguna leenahay okay marka warbixintan idin kaga diyaariyay Suldaan Siciid indhaha lagu wada hayaa soo ma oran ana Harti ah ana Suldaankii Harti ah soo ma oran ha Suldaan Siciid Suldaankii Harti baa tahay
isaaq ma ka soo qaadi kartaa waxay harti doonayaan ma noqon kartaa nin diidi kara waxa isaaq doonayo mise waxaad u tagtay igu sawir iyo inaad meeshaasi mataqaanaa inta camirtaan hadhowna wax Somaliland dan u ah aad soo qaadaan soo dhawaada warbixintaasaan idin kala dhigdhigi doonaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed waxay indhaha ku haysaa ceerigaabo waxa ka dhacaya gaar ahaan reeraha daarood ama harti waxayna indhaha ku hayaan Suldaan Siciid waxa uu kala soo laabto magaalada ceerigaabo xilligan waxay isku bedeshay magaalo aysan gogol oolin balse waa goob gogol kaliya inaysan oolin gogol nabadeed balse waa goob lagu tijaabinayo laguna cabirayo awoodda mowqifyada saddex dhinac waa Somaliland oo dhinac ah harti iyo Puntland oo dhinac ah waqtigan beelaha harti oo dhan laga bilaabo warsangeli ilaa dhulbahanti waxay si dhow u eegayaan hal natiijo eegayaan waxa uu Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaam uu ka soo qaaday ceerigaabo Suldaan Siciid haddii uu soo laabto isagoo wata heshiis Somaliland ku adkaysanaysa aragtideeda qalinka ugu duugo waxay noqon doontaa guuldarro Soomaali oo dhan soo wajahday gaar ahaan beelaha harti saameyn ku yeelanaysa laakiin haddii uu ka soo laabto isagoo difaacaya midnimada iyo karaamada beelaha harti wuxuu noqon karaa ama noqon doonaa hogaamiye taariikh iyo sumcad ka tagi doona hartigu Puntland iyo waqooyi bari degan maxay ka doonayaan gogoshaas ceerigaabo taale xilligan beelaha harti waxay doonayaan waa mid koowaad cadaalad dhab ah in laga helo ceerigaabo in nabadaasi la qaadanayo ay ku dhisnaato